qaybta ugu dambeysay laga yaabo in dad fara badan ay ka warhayaan kabtan Cabdi Maxamed Rodol waxa muddo 40 sanadood uu duuliye sare ka ahaa sharikadii Somali Airlines iyo waliba sharikada Saudi Airlines muddadaasi oo inta badan uu kabtan ahaa ayaa Cabdi Maxamed Rodol waxa uu soo maray meelo aad u fara badan oo caalamka haddaba mar noogu yimid studio television-ka Universal ayaa kabtan Cabdi Maxamed Rodol waxaan kala sheekaystay khibradiisii xagga duulimaadyada iyo meelihii uu soo maray iyo waxyaabihii ugu daraaya soo maray waxaana markii ugu horeysay uu iga waramay sidii uu ku bilaabay duulimaadyada Hereri aad baad u mahadsan tahay adiga Universal iyo magaalada Hargeysa ayaad marti noogu tahay studio Universal ma booqashaad ku soo gaadhay marka booqashaan ku soo gaadhay laakiin xoogaa waan joogay waan ka raagay laakiin waxaan isleeyahay ilaa iyo dhowr bilood oo joogay hawlo yar baa iska aniga iyo khaas aan u socdaa marka laakiin caadiyan waxa degan tahay sidaan ka warhayo imika dalka Mareykanka deganay magaalada Seattle Cabdi Maxamed Rodol waxa laga yaabaa dad fara badan oo barnaamijkan daawanaya in qaarkoodna ay rakaab ku noqdeen intii aad waday Somali Airlines iyo intii Sacuudiyaba qaar fara badan oo kale oo inta ka badan ay magacaaga maqleen goorma duulimaadyada bilowday markii ugu horeysay duulimaadyada waxaan bilaabay kulkii aan ardayda horta Muqdisho meesha la yahay aan ka bilaabay 1963 awailkii 1964 Germany baan tagnay Lufthansa Airline oo Germany waxaanu ka soo graduate garoon 1965 marka commercial co-pilots baanu ahayn waxaan ku bilaabay Somali Airline August 1965 Somali Airlines xaaladeedu markaas sidee ahayd ma diyaarado Soomaalidu leeyihiin baa jiray waqtiga kulli anigu waxaan ku jiray groupkii ugu horeeyay asaasayaasha lagu asaasay Somali Airlines fikradana waxaa ka dambeeyay Mareykanka iyo Talyaaniga iyo Jarmalka Somali Airlines asaaskeedii anigu waxaan joogay meesha la yiraahdo Germany Bremen oo Lufthansa soo arday baan ahayn laakiin Somali Airlines saddexdii DC3 ugu horeeyay waxa siiyay Mareykanka dadka qaarkood C47 bay leeyahay waa DC3 baa leeyahay saddexda diyaaradood ee Somali Airlines lagu aasasay DC3 da Mareykanka siiyay Jarmalku si civil aviation loo sameeyo waxay u qaadeen dhowr iyo 450 arday bay ayaan ku ay qaadeen adigu 15 pilots ah dhowr iyo 30 air traffic controller iyo niman kale oo markii dambe mechanics noqday Talyaaniguna waxay markaa bilaabeen international airport Muqdisho inay sameeyaan marka fikradan Somali Airlines saddexda wadan ayaa isugu tagay diyaaradii lagu bilaabayna Mareykanka diyaaradaha marka DC3 ga noocooda ku sheegtay diyaarada intee la lag baahay DC3 waa diyaarad caan waa diyaaradii loogu iibsaday ilaa iyo dhowr kun oo diyaaradood baa laga iibsaday marka diyaarad ilaa 18 ruux qaaday oo markay degaysana ma garanaysaa tailwind bay lahaydoo de way taagan tahay oo marka laba ijino ma garanaysaa Brighton Winthia iyo propellers de Havilland ay yiraahdaan bay lahayd marka DC3 waa caan oo adigana waad aragtay baan maleynay kulli waad raacday isagoo ka yartay adigu aad ka daayirtay waan maleynaya kuwii ka dambeeyay aan u raacay Cabdi shaqada duuliyanimada ama pilotnimada ma adiga dalbaday marka oo jeclaa mise waa lagu qoray hadda runta doonayso xitaa ra'yiga kama haysan oo anigu asalkayga haddaan dib backgroundkayga ku siiyay waxaan ka baxay school kan Sykes Thompson baa la oran jiray Axmed Gure termiidiinkaygii markaa sheekh baan secondary-ga galay maan dhamaysan markaa halkan baan laga qaaday oo bal iska soo fiiriyo waxaan la doonayo markaa gawaadhina la siiyona lagu qaaday taanka markaan u galin way English speaking people baa la doonay dawladdaasina waa dawladdii markaas weeyaan Cabdirasaaq marka inta iyadaba waxaan noqonay reer waqooyi nimankii lagu aasaasay meesha laakiin fikrad kama aan haysan oo injineernimo iyo xasun bal yaqaan waxa bay iska ahaydun bal ma garanaysa markii dambe shaqoon bay noqotay laakiin raay kama aan haysan ma waxaan lagu talagalay waatay markaad isku soo wada duubto muddo intee lag baad markaa duulaysa ama Somali Airlines ha noqoto ama Saudi ha noqoto ande may yareen oo Somali Airlines horta Somali Airlines markii la sameeyay boqolkiiba 50 oo Alitalia qaadatay Soomaalida boqolkiiba 50 bay lahayd ولبدا دولادود با shirka ku Alitalia iyo Somali Airlines sharikad ahaan bay ahayd labadaas ku ahaa
shuraake markii ugu horeeyeen bilowna ko baalismo nimanka noo ahaa ma garanaysaa kabtanada niman Talyaaniga ay ahaayeen Altalia ka socda horta fikraddu saas ahayd ay ku bilaabantay kulkaan wuxuu joognay waan u soo socdaa bal sanawaadka kulli waan ku sheegay oo kulkay ahayd 1967 kii waxay noqotay aan course tagno maadaama saacada online saam diyaaradii kabtana uga noqono marka aakhirkii 1967 iyo 66 bilood iyo 12 shahadana waxaan joogay Roma aniga rag kale oo saaxiibada guruubadii kamid ahaa marka dabadeed markaan soo noqon dabadeed baan adigu nimanka kabtanada Talyaaniga lagala wareegay meesha oo aanku kabtana noqon marka hadda sanadkii dib ugu noqdo maadaama aan bilaabay 1965 kii Soomaaliya Airlines waxaan u shaqeynayay ilaa intii burbureysay marka ilaa 26 sano noqonay ilaa 19 kii burburkii hadda iminka eegtana wax bedelay ma jiraan meesha wali aan ba ka jeef pilot marka dabadeed Saudi Arabian Airlines waxaan u shaqeeyay 12 sanadood waxaan ka retire garoobay 11 December 2004 marka waxaan ugu duulay 6 sanadoodna diyaarad la yiraahdo Airbus 300 وسعودي ايرلاين marka hadana waxay siiyadu course baan siyaata lu tagay marka 6 sanadood waxaan ugu duulay diyaaradaha la yiraahdo 777 amba dadka qaar kood ay ahaan 777 waa Boeing Airbus kuna waa Airbus kaliya baba ka dambeysay marka 787 taas baa ka dambeysay abdi waynu iman doonaa Saudi Airlines iyo duulimaadyadii aad la samaysay laakiin Somali Airlines hadaynu ku horeyno waqtiga aad ku beertay imisa meelood bay tagi jirtay والله Soomaaliya horta meel badan bay tagi jirtay meelo waxa jirtay Muqdisho iyo Southka Talyaaniga waxa furan diyaarad military ah jiray oo say boosta u qaadaan tagi jiray Muqdisho intay ka tagaan weygii mar hobyo aad ka tagayso gaalkacayo dib aad ugu noqonayso ma garanaysaa garoowe oo labadii weeg bay isku shuban markaas taas adigu marka boosaaso qandala caloolad ku dambeynaysa caloolad seexan jirta labadii weeg mar oo boosta ina lagu tuuray qaar kood labadii jiin ma baqtiinaysid inaan waxa la socdo baasha karaanaya ka ruuxna uu soo fuulayaan boosta ku tuuray jiinka la baqtiinay meel qaar marka horta loo kali xagaas ugu badnaa laakiin sidee diyaaradu waxay tahay ergaabiye baan ku tigi jiray cadaxid oo DC3 da waxa la tigi jiray Dar es Salaam waxa la tigi jiray Nairobi wax international iyo Cadan markii ugu horeysay la bilaabo laakiin 68 wixii ka dambeeyay DC3 saddexdii DC3 waxa lagu soo kordhiyay laba five counts kana waxa weey Ingiriiska sameeyay waxa loo qoraa fifth count oo kale five count oo diyaarado ma garanaysaa de Africano propellers la weeyaan waa diyaaradii ugu horeeyay autopilotna tii hore pilots ka ahaynay oo de pressurizer oo meel kale tiisay ilaa 18 kun tagaysa markaas adigu labada diyaaradood baa Soomaaliya la inugu xigay five counts waa laga baxay mar dambe oo waxa lagu bedelay diyaarado Fokker laba Fokker baa lagu bedelay kuwan aanu soo gaaray waa kuwa weyn Fokker kaasad soo gaaray Holland laga iibsaday jadka Somali Airlines waxay soo gelisay oo aanu course aanu tagay 1974 kii Mareykan Boeing 707 ma waxay ahayd 720 baa laakiin se waa isku caayiladu waa 707 marka laakiin se diyaarad ay leedahay Soomaali ugu duusho oo jeta way diyaaradii hore kare ahayd waxa ugu horeysay 1976 oo Soomaaliya laba diyaaradood soo iibsadeen shirkadii Somali Airlines markii dambe way kobcday waa ballaaratay meelo fara badan oo caalamka bay tagi jirtay marunba abdi horta in markii dambe la idinku xanaakadin jiray air insha Allah oo aydan lahayn waqti go'aan Somali Airlines ay meelaha ka degto ay tagayso ma horta xaqiiqda horta shirkad fiican bay ahayd oo imika waxaynu ku amaani karaa Somali Airlines marna shirkad aad u weynaatay ma ahayn hadda waxay jiraayadku qori jireen Somali Airlines waxay ahayd shirkadii saddexaad ay dadkoodu wadaanba oo dad Afrikaan ay wadaan Ethiopian Airlines iyo Sudan baa ka horeysay nimanka carabta ma sheegay Afrikaan marka xitaa jiraayadka qoray waxay wado only African Airlines bay 1975 iyo qoran 74 ka waxa lagu amaani jiray ka sameeya iyo hostesskooda iyo pilotkooda waxa ay ku isku leeyihiin adeetay ka weyn oo ma garanaysaa hadii la wadanku bay la mid tahay kubaceed marka asaas ahayd Soomaaliya markii dambe meel fara badan oo caalamka baad ku tagtay ama meelihii ha noqoto rakaabka ay u qaadi jirteen ama ha noqoto meelihii wufuud
u qaadi jirteen imise meelooda caalamkaabaad la tagtay Somali Airlines wallaahi way badan yihiin marka haddaan waliba su-aashaadii hore ku noqdeed leedahay insha Allah Airways horta waxaa la oran jiray Egypt Air bay ayagada insha Allah Airways la oran jiray Somali Airlines waxaa jirtay duruufo ku iman jiray oo sharikada Somali Airlines oo qori ma isticmaali jirin ee dawladdu way isticmaali jirtay marmarka qaarkood shada walkii oo noo hagaagsan ayaa deeanba wafti qaadanaya amba madaxweynaha markaa jooga uu qaadanaya marka taasi dhibaato badan bay keenin jirtay maadaama diyaaradiina ay yar yihiin laakiin sidoo kale ninkii passengerka diyaaradii ka tagtay asaga insha Allah Airways un bay u tahay waatay su'aashii kale ku weydiiyay ahayd imisa meelood baad la tagtay haddaad wax nooga tilmaanto dee horta Somali Airlines inta badan adigu khadadkay tagi jirtay waa khadadkan uu la yaqaano ama Dubai Abu Dhabi Muscat Yurub waxa qodin ka tagi jiray Roma iyo Frankfurt meelaha kala duwan Dar es Salaam iyo Nairobi un bay ahaayeen soo garmaysid yani marka international Seychelles number baan tagi jiray laakiin markii dambe waan ka joogsan marka regional kaasuun baan wahaynay inta kala duwan local mooyaan international keenu mu badnaan Yurub laba meelood man ka tagi jiray Roma iyo wufuuda meelayna ka digin malaha meelayna ka dejin malaha wufuuda lama malayn karayo xitaa ilaa Mareykan maan diyaarad ka dejino aanu markaa xitaa ilaa New York waan ku tagnay inta badan Cabdi muddada 40 sanadood ku dhawaad duuleysay kabtan baad ahayd Soomaa inta badan inta hore ayaa kabtan baan ahaa laakiin inta badan dhowr iyo soddon waxa ahaa kabtan baan ahayd markii hore co-pilot ka magaranaysa dhowrkii sanadood hore mooyaan inta badan kabtan baan Cabdi haddii aan ku weydiiyo haddii lagu yiraahdo shaqo ahaan shaqada duuliya ama pilotku maxay kaga duwan tahay shaqooyinka kale dadku qabtaan oo dhan maxaad ku tilmaami lahayd horta regulation badan baa loo sameeyay sharciyo badan oo maadaam duulimaadku bini'aadmigu ku cusbaa oo xaqiiqdii ay ka baqanayeen dadku inay hawada tagaanba oo sharciga waa la adkeeyay marka wax walibana it goes by the book waxaan wax waliba yaani waxa weeyaan waa daqiiq weeyaan wax mala awaali ma jiro hadhowaynu samaynayo markaas waxa weeyaan waliba shaqadiisa uu garanaya uu rehearse gareeyay oo ma garanaysaa nin waliba shaqadiisa xafiis kale de moogtay maadaama aan director hawaan min jiray xafiisku waa kosi baad qadiyo goor ku soconaysa tagale mesela ninku hadduu iminka aad mesela in badan check pilot baan hadduu iminka uu nin landing sameeyo amba take off sameeyo si shaqooyin kale oran maysid 90% baad samaysay 99 baad samaysay boqolkiiba waa 90 iyo waa laba mid amba waa safe amba waa unsafe marka wax waliba waa daahir ya shams amba waa cadaan amba waa madow waxa la yaalo wax ka dhaxeeya xaraka kasto samaysa hadaad pilot jeegaraynayso amba waa safe amba waa unsafe وما هو حضرين والله ما أنت سقالي لاندنج بسمي لاندنج أو سمي بايلوت كو أمبوا سيف حلايا من مركز كل شيء في عنه تجي عبدي سيدات فرا بدن oo kale ay ka war hayaan imika waqtigan aynu joogno duulimaadiyada waxa lagu tilmaamay inay xaga la mooyaan in badbaadadoodu aad iyo aad u fiican tahay muddada aad duulaysaa 40 sanadood ku dhow maxaa kuugu daraa والله wax goori hoon xusuustaa ma jirto marka dambe wuxuu ilaa shaqadu ma kamid noqonaysa xitaa hadaan ku raahday China khusuusan DC3 China way ka baqtay China wax badan baa China ka baqtay khusuusan diyaaradii hore Worldka laakiin se waxaan waa wax 6 bilood oo walba simulator iyo lagu itixaamiyo lagu baray ka wax gooni hood sooranayso wallahi waxba balaaya baa dhacay ma jirto laakiin sida kulli waxyaalaha ugu sasantifsan waa wadarka oo hawada yani taasoo marmar badan hawadu haday xun tahay yar concern ma garanaysaa waad ka walaacaysaa laakiin si guud ahaan imka diyaaradahan dambe satellite bay lahaayeen GPS bay lahaayeen berigi hore DC3 marmar baad la lumaysaa marka ila dhulka inaad eegto weeyaan markan dambe baashu lumayso dambe garatidii way lumaysaa oo soo garinmaysid ila instrument iyo waxa ma laha dabayshi baa qaadaysa ma lahayn DC3 dabayshi baa qaadaysa wasidan maaydan ma garanaysaa soo maadarag badoo kale halka doonaysay 2 saacadood baa halkan tagto haday mesela dabayshu ay ilaa 30 mayl baad marka waa inaad laymankii eegtaa oo maxaad ku garanaysaa markaad hawada sare marayso dhulka maxaad ku calaamadsan karaysaa waxba calaamadsan maysid waa DC3 kuwa hore waa inaad dhulka calaamadsataa kuwan dambe qalabkaas ku sheegaya GPS ka kuwa hore waa dhulka soo degtaa aragtaa meeshii iyo wadadii iyo ya
سؤال كلا جعلينا كويدي حوي عبدي taas waa maalinnimadii oo wadadii iyo dhulkii laga yaabay inaad garato hadda soo dhawaad habeenkii maxaa la sameeyaa habeenkii baa ka dhib yar kulkaad way magaalooyinku Soomaaliya nalkooda iyo habeenkii baa ka wanaagsan ee mushkiladaasi maxay tahay habeenkii haddaad magaalo dul mareynba maxaad ku garanaysaa inaad jihadii saxdayd u socoto inta badan hadii اللهم صل على محمد هذه مثلا بدي هتبطل دول مريسو وانا نافيجيتر اد وتا markaas oo aan badayaxa iyo jalistilka baad ku soconaysaa aan balooransi waana qalabka kula saaran yahay aan waxaan ka hadlayaa in dhulka dhexdiisa markaad ku duulayso abdi laba sharikadood oo diyaaradaha baad la soo shaqaysay Somali Airlines iyo Saudi Airlines tii hore waxaad sheegtay in shaqaaluhu ay wada haayeen iyo injineeradu Soomaali wada haayeen rakaabkeedii raaci jirayna inta badan ay dabcan Soomaali ahaayeen tan kale ee Saudi Airlines markaad u barbar dhigto adiga shakhsiyan maxay kugu kala duwaneen labadooda horta sharikad ma garanaysaa kala iman fiican bay ahayd oo mesela baad eegtay markaan 777 ku duuliyo kale meel dhaadheer baa taysa mesela 12 saacadood iyo barlaba kuro idinka waa tajida ka tagtay Narito kale markii ay Olympics ku jireen inta badan jidda London oo kale marka waxa weey hadiyo goorda wadarkii iyo trainingkii wixii aad sameynayso oo dhan way ka duwan yihiin wada Yurub oo dhan baa tageysa diyaarado cusub weeyaan طبعا waa ka mushahar badnayd aad bay uga mushahar badnayd oo deelantan wadankan baa loo shaqeynay ma hada haddana anigu waxaan jeclaa Somali Airlines oo leeno taasida waa wadankayga baa ay ku tabcayso xoogaygu ku jira tan nin qowsaar oo ka shaqeysanayo baa tayda waatay Abdi Maxamed Rodol aad iyo aad baad u mahadsantahay